aad baan idin salaamayaa asxaabta ku xiran channelkayga Farxiye Cabdalle meel waliba oo aad dunida ka joogtaan soo dhawaada waaniga Farxiye ah iyo muuqaal cusub channelka aad daawanaysana waa channelkayga Farxiye Cabdalle waa hagaag asxaabay maalmaan waan kala yara mashquulnay idinkana waxaa jiray codsiyo dhowr ah oo aad ii soo bandhigteen haddaba wax aad marar badan iga soo codsateen ayaan caawa idin sidaa waan ogahay waxa fiicneed inaan goor hore idin soo daayo laakiin waqtigan ii saamixin maadaama inta badan maalmahana aan shaqeeyo haddaba codsiga ii soo dirteen wuxuu ahaa Farxiyo inoo soo sheeg maadaama astaamo aad soo odorosto aad soo geliso qof aan isla soconin oo aan isjeclayn oo muddo aan waqti isku luminay markuu qofkii kaa tago sideed ku iloobi kartaa noo soo geli hadduu wiil yahay sideen gabadha ku iloobaa hadday gabar tahayna sideen ku iloobaa wiilkii ma fahamtay taasaa ii soo dirteen anigana codsigiina ayaan ka jawaabay maadaama saa ii jeceshiina horta anigana idiin jecelahay wax walbo aad soo codsataan waxaan jeclahay inaan aniguna ka dhabeeyo anigoo waxaan ku iri video hataa aan diyaar u ahayn baan iri allele waa inaa caawa u duubtaa maadaama qoraalka aan haay hore usoo odrosay kommentyadan fiirnay waxaan arkay dad fara badan oo soo codsada Farxiye noo soo gelitaa Farxiye noo soo gelitaa marka waxaa jira allele fadhi kuma yaale asxaabtaada waa inaad codsigooda ka jawaabtaa waa hagaag haddaba caawa waxaan idiin haayaa sidee ku ilaabi kartaa ama ku iloobi kartaa qof aad si dhaba u jeceshahay qof aad adiga si dhaba u jeceshahay sideed ku hilmaami kartaa oo aad qalbigaaga oga saari kartaa sheekadu caawa serious waay runtii aniga waxa way qodobada waan soo odorsaa waqtigan ku bixiya juhdi dadaal idinka dartiina mujeedin waraqaha ma jecli mala awaalka iyo wax aniga aan maskaxdayda ka keen inaan ku soo tuuro waa laga yaabaa inaan ku darsado khibrad yar laakiin inta badan waan soo odorsaa ma fahamteen marka asxaabay maanta waxaan idinla wadaagayaa astaan ka duwan astaamihii hore waligeed tan oo kale soo magelin samahan idinka iga codsateen laakiin aniga hataa kuma fikireynin oo iguma soo dhacsanayn marka codsi idinka yimid asxaabteeda YouTube-ka ku xiran dartiinaan u soo raadiyay waxaanan idiin haayaa sida ugu fudud ee qofku uu ku iloobi karo qof uu dhab u jecel yahay oo ka tagay ama ka goostay ama ka diga rogtay ayaan idiin haayaa ama ha isku dhacaan ama ha kala tageen iyagoo isqabay ama xiriirkooda ha burburo yacni noocay doonta ha ku imaato yacni xiriirkaas go-ay noocuu doona ha ku imaado laakiin sidee aniga ku iloobi karaa qofkaas okay horta dunidan aan joogno ma ahan mid qof waliba u haysto lamaane qof waliba lamaano ma haysto oo waxa macquula in lamaano badan aanan isfahmin oo khilaaf uu soo kala dhex galo ma fahamteen si kasto ma ahan macnaheeda marka in nolosha ay istaagayso hadda adii lamaano weyso noloshaada ma istaagayso maanta qofa isjeceshiina weyso noloshaada ma joogsanay maya maanta qofa isqabteena kala tagteen noloshaada ma joogsanay ma joogsanayso keep going sidaadii hore tunbata ya haddaad wiil gentleman ahayn sidaad isku kala kicinaysa haddaa gabar ahaydna sidii oo kale noloshu sideedaba ma istaagayso ama farxadda kaama lumayso ma fahanteen laakiin waqtiguu soconaya boogahana way bogsanayaan ma fahamteen يعني وقتك كو سكنايا بوغيه دبكي iyo dhaawicii lagu geystana waad ka bogsanaysaa ma fahamtay okay laakiin sida aad ula tacaali lahayd ama waqtiga adag aad uga gudbi lahayd ayaa ah mid aad iyo aad u adag okay waxaan jeclaan lahaa markii aan idinla wadaago qodobada aan isleeyahay daawo way u tahay ama runtii qofkaas haduu qodobadaas sameeyo qofka uu dhabta u jecel yahay oo ka tagay iloobi kara because qofna qof uu jecel yahay ma rabo inuu iloob laakiin hadii duruuf iyo dani ay timaado aad kala tagteen oo aad isweyseen adigana aad lagaaga baahan yahay inaad ilowdid wiil ama gabarey hadee markaa waa inaad dadaal bixisaa juhdi bixisaa dad baa sariir iska koro sama dad baa dhahay muxuu iiga tagay hebel Soomaalidan waa taqaanaan badigood waxa lagu dhahayaa heblaayo ma la qabay Allah hogayay goor meel la furay heblaayo ayaga qalbi jab kugu ridaay waxa uu dhahay heblaayo aaw ninkii guursaro miyuu ka tagay Allah hogayay xagay nin kale ka keenaysa no way
ilaahay xaggiisa ma uga imaata adiga waxaa laga yaabaa kii shalay midka qurux badan inay hesho mid ka wanaagsan mid ka xoolo badan mid yacni ka qalbi nadiifsan mid ka diin badan inay hesho soo ma ogid marka soomaalideena inkastoo dadku isku mid ahayn laakiin soomaalideena badigeeda annaka waxaan sameynaa niyad jaban ku ridnaa hadday gabar tahay ama hadduu wiil yahay dadka niyad jaban ku ridnaa heblaay ma la soo fure oo shalaaba la aroosee maxay tahay furiinkaas waxaa la dhahay heblaay aawo ninkay muddada ka daba ordaysay waqtiga iyo juhdigii dadaalka ku bixinaysay haddee timekaa dhammaaday soo ma ogid labadaa kalena ilaahay isuma qorin inay isguursadaan haddaa boqboq maqashaan raalli ahaada daaqada ii furan yara kuleylaa jira okay haddaba qodobada inoo bilaabayaan war idinku dilina qodobada sida aad ku iloobi karto qof aad adiga si dhaba u jeceshahay okay kow maxay tahay hagaaji fikirkaaga adiga fikirkaaga hagaaji okay in badan waxaa dhacda marka uu qof ka tago qofka uu jeclaa inaad aad u fikirto ama si qaldan aad u fikirto ama aad isdhahdo qofkaa wuu ku qiyaamay ama waqtiga ayuu kugu lumiyey oo waqtiguu kaa lumiyey ama waa qof xun oo wax walba maxay ahaatay ayaad ku fikiraysaa isku day inaad hagaajisa adiga fikirkaaga niyadaadana geliso in waxa dhacay aadan waxba ka bedeli karin isla markaadana aadan qof ku qasbi karin oo adig ku jeclaado dhinacna ha u fikirin hadhiin waqtigu kaa lumiye ama waqtiga kaa lumise hadhiin way ku qiyaanta hadhiin qof kale kaa doorta ama qof kale kaa doortay yacni fikirkaaga wanaaji yacni qadartaa dhamaatay intaan ayaan ku ekaan inaan wada socono taas marka hore fikirkaaga wanaaji waa kow labo maxay tahay iska cafi qofka tan waxaa u malaynaa dad badan waa iigu diidan yihiin laakiin cafintu waa waxa ugu wanaagsan oo qalbigaaga nadiifka ka dhigaya iska cafi qofka okay in badan waxaa dhacda marka uu ka tago qof aad jeclayd inaad ku fikirto si qaldan aad u fikirto ama aad isdhahdo maya kan wuxuu ahaa qodobka koowaad sorry iska cafi qofka soo maahan aarsiga ugu fiican waxaan aaminsanahay inuu yahaa la yiri cafiska aarsiga ugu wanaagsan waa cafiska okay dad badan baa ku fikiraya inay aargoostaan ama nacaan qofkii ka tegay laakiin ma ahan fikrad fiican sidoo kale iska cafi micnaheeda ma ahan qofka noloshaada inaad dib ugu soo celiso ama noloshaada oo dib ugu soo laabto waa u ogolow nafsadaada inay hor u socod yeelato inaad horumari karto yacni qof aad maanta cadowjinimo u qabta haddaad cafiso adiga naftaadaa horumarisay yacni dhaqaaqaa yeelanaysaa laakiin qofka haddaadan cafino niyadaada ku jiro maanta dham aad leedahay allele qofka qofkiisa kuu gala waay adigii horu socod ma samaynaysid ama xiriir kale ma samaynaysid ama qof kale ma guursanaysid okay marka iska cafi qofka okay lambar 3 ayaan eegaynaa waxaa la yiri ka fogow inaad ka fikirto mar waliba qodobkan aad u muhiim u yahay waxaa la yiri ku dadaal in qalbigaaga aad ka ilaaliso fikirka maxaa yeelay qof kaa tegay oo aad ka fikirtaa waxay qalbigaaga u fududeynaysaa inuu dib u milicsado waqtiyadii wanaagsanaa ee aad qofka la soo qaadatay waxaana adkaanaya in qalbigaaga adiga aad ka saarto waa sax haddaa maanta oo dhan qofka ka fikirto maanta oo dhan qalbigaaga ku jiro qofkeena uu kaa tegay hadda waayihii wanaagsanaabaad maanta oo dhan milicsanaysaa adigii waqti baa kaa tegaya haddaad gabar tahay hadduu wiil yahayna waqti baa kaa tegaya marka taana marka la dhahay waxaa horta aad ugu nugul gabdhaha ma fahamtay soo marka gabdhaha si gaar waxaan leeyahay qof kaa tegay ka fogow inaad ka fikirto wax kastoo ku xasuusinaya iska tirtir sawirra miya qoraalla miya even hadduu yahay social mediaga ka fogow ma fahamtay ignore garey maxaa yeele qofku waa suu doona ha kaaga tago yacni nacayb ma ahan laakiin naftaada ayaa la rabaa inaad adiga qaboojiso ma ila socotiin okay qodobka ugu dambeeyo qodobadan way gaaban yihiin qodobka ugu dambeeya afraad muxuu yahay ka hortag rajada ka hortag rajada waayahay rajada marka maxay tahay waa maxay rajada aad ka hortagaysid rajo waa inaad dib u hesho wax kaa lumay rajo waa inaad dib u hesho wax adiga kaa lumay taasna waxaa dhacdaa marka maxay tahay si dhaba adi aad wax u jeceshahay ayay dhacdaa yacni waxaa isleeda allele hebel wuu kuu soo noqona iska sug hebelkaa ma maarmo mama wanaagaagiyo iloobaya wuu kuu soo noqonaa rajada ka hortag haddaadba mar qofka uu kaa tago okay
qalbigaaga wuxuu rajaynayaa baa la yiri inuu mar uun qofkaa kugu soo noqdo wehelkaaga uu noqdo so please rajada ka hortag bas qofkaan wuu kaa tegay mar dambe tade qof noloshaadii ka baxayna maba rabtid inuu kugu soo noqdo sida runta ah haddaad damiir leedahay okay waayahay marka ugu dambeyntii marka taa waxbay ka hortag rajada haba ogolaaninba qofkan inaad rajayso inuu kugu soo noqdo wuuba kaa teg mugtaa adoo u baahan uu kaa tegay ama adoo u baahanay kaa tagtay soo rajada ka hortag okay ugu dambeyntii ku dadaal naftaada waqtigaaga qaaliga ahna ku dhamayso farxad faamilkaagana isku day in maxay tahay faamilkaaga waqti aad la qaadato in bulshada aad dhex gasho marka oo aadan maxaa la kaligood Soomaaliga waa iga lama ka sheekeeye in aad kaligaa isgoyso yani macna meel isku goyso warkaalahii saxa kuwa sujuuya ila dhashay kowdhaha gurigana ila jooga iyaga Soomaaliga iga lumiye xaqiiqatan sujuu raaliga ahaada marka ugu dambeyntii isku day inaad iska masaxdo wax waliba waa hadda wax waliba oo qofkaas ku xasuusin karo guys ma fahamteen ya marka insha Allah waan filayaa qodobada inay ida caawin doonaan dad badan oo ani aan hadda ertaan aan soo gelinin aan u sheegayna way caawiyeen really ma fahamteen marka sidee ku ilaabi karaa ama ku iloobi karaa qofka aan sida dhabta u jeclahay qodobada afartan waan filaa inay ida caawin doonaan dhiirigelin ay idin noqon doonaan wiil iyo gabarba waa la wada dhiban yahay de jacayl haday tahay guur haday tahay jawiga iyo xaaladu waa wada adagyihiin kowdhaha laakiin waxaa loo baahan yahay dadaal iyo karti loo baahan yahay iyo isku filnaasho qof hadduu kaa taga micnaheeda maaha moraalkaaga inuu qaatay micnaheeda maaha caafimaadkaaga inuu qaatay yani waad dhibtoonaysaa oo dhar waxaa jira gabdho marka qasooyinta ila soo wadaageen dhahay anaka sariirtii kama kaceen maxaan sameeya no way taasna heshin maaha qofkan ilaaha uunta adina ilaaha ku uunta naftaada ka fikir aad baa umahadsantiin sida aad iigu xirantiin mar waliba subscribe like share waa xaggiina isla socod wanaagsan